يا بوس أنا وكيد ولا تقولنا فشوف واقرتي قبل هيجن بفلوس ونور سوبر واقرتي وضعوا دعوة حد بدل مشرا لكن ولا سرقة ولا سوريا ولا اللي يرى بمعنى كثير يكون هيجن بوحد وكثير هيجن بوحد نجيبها واحد لكن هيجن بغرف يبغى waayahay saacadihii ugu dambeeyay waxa soo baxaya warar sheegayay in israasaasay ay dhaxmadhay ciidanka Puntland iyo kuwa Somaliland ee ku sugan jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq arintaasi maxaa ka jira arinta ciidanka walaba oo sarafta walaba oo sarafta laakiin dagaal laba saf ma dhicin walaba oo sarafta waxana waa anaga gaarin laakiin xaggooda waxyeelada yaa gaarsiiyay xaggooda gaartay xaggooda waxa gaarsiiyay guutada labaad oo ciidan meel jooga wax gaarsiisay iyaga wax ma soo gaarin miyaa waxa loo sheego adigu fursad waxay ku dhaawaa jiraan laakiin wax ama daawac xabadooda kuma dhicin waayahay waxaad hadda sheegtay in wax dhaceen si kasta dhinac kasta ha ku guuraadeen waxan aad noo sheegtay inay dhaceen goorma ayay dhaceen waqti intee la eg ayuu socday waxan dhacay iska horimaadka haatan naftarkeeda wararkii ugu dambeeyay ee na soo gaaraya waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlayo deegaanka Tukaraq waliba hubka culus hubkaas yaa ridaya xageesa ka dhacaya hubka anagu waxa weeye hub bilaash xabad bilaash madina waxa uu daaba ku ridnaa rasaasta marka xageeda oo anaga lagu ridnaa waa xageeda oo wax ka dhacayaan waxa barabsan iyo dagaalada dhexda marnaa laakiin waqti badan ayay ciidanka Puntland meeshan fadhiyaa maalinta ka dambeysana siyaado ciidan ayaa sii kordhaysa meeshan maxaa laga fili karaa xilliyada soo socda xilliyada soo socda waxa weeye amarka Ilaahay waa iskale laakiin xilliyada soo socda isbedel waan filaynaa waayahay maalin kasta shacabka waxaad ka mid tahay ciidanka jiida hore jooga shacabkuna maalin walba waxa ay sugaan isbedelkan ma mid ay Puntland kaga dhabayn doonto ba mise waa mid maalin walba isbedel baan rajaynaynaa un taagana waxa weeye wax kala dhiman ma gala wax maalin kasta aan meeshooda dhaafina ma gala Puntland waxa weeye hadda diyaar tahay hadana waxa weeye arrinta ka buuxsatay si fiican ugu diyaar garoobay waxa weeye fi dharka maanta weeye